hooyo aabbo ayaa wiil madi ah oo ay dhaleen u dooray gabar saalixad ah oo aad u wanaagsan. Aroos weyn oo u sameeyeen kadib waxaa loo galbiyey lamaanihii cusbaa deegaan gaar ah oo ka fog reerka wiilka halka ay degan yihiin. balse gabadha oo ahayd qof aad u wanaagsan ayaa isbuuc walba soo booqan jirtay reerka ninkeeda oo dadda ah. waxay u sameyn jirtay wax walba ay u baahan yihiin xilliga ay u tagto, halka wiilku uu war u haynin marxaladda waalidkiisa oo shaqadiisa uun ku mashquuli jiray maalintiisa oo dhan. balse waxa uu helay qof wanaagsan oo waalidkiisa daryeela, waa xaaskiisa. sanad kadib xaaskiisii waxa u dhashay wiil aad u qurux badan. isla maalintaasi waxaa geeriyooday saddexdeed ama saygeeda hooyadiis. waa farxad ay murugo weheliso. aad bay uga naxday geerida ku timid wiilkeeda yar ayeeyadiis maadaama uusan arag. kadib baa xaaskii ninkeeda ku tiri, orod aabba noo keen gurigeena, aniga ayaa daryeelaya. xaaskiisa aad buu u jeclaa, wuu ku waafaqay arrintaasi. muddo kadib markii aabbihii guriga wiilkiisa uu joogay waxa uu u baahday garab qabasho. aabbihii oo da'diisa aad bay u sii weynaatay, xaaladiisa caafimaad iyo naftiisa isbeddel xooggan baa ku timid. xusuus yari iyo hilmaamsi joogto ah baa soo wajahay. wuxuuna gaaray xilli uu u dhaqmo sida carruurta oo kale. waa astaan aan la yaab lahayn oo waayo qofka markasta uu gaaro xaaladaasi oo kale waa carruuroobaa. wiilkiisii ayaa aad u dhibsaday aabbihiis, wuxuuna bilaabay inuu si xun ula dhaqmo, ku qayliyo, caayo, waxbana uusan u reeban. mar walba uu ku xadgudbo aabbihiis. xaaskiisa ayaa ka sasabi jirtay inta badan. wiilkii dhallinyarada ahaa waxa uu aad uga fikiray xanaanada iyo daryeelka wiilkiisa yar. waxuuna ka baqi jiray in aabbihiis ka dilo wiilka isagoon ogeyn, maadaama aabbuhu uu sida carruurta oo kale u dhaqmayo oo nafsiyan uu u waxyeeleeyo wiilka yar. ugu dambeyn wiilkii wuxuu go'aansaday inuu aabbihiis geeyo meel lamadegaan ah oo bahalka yeeyada loo yaqaano deegaan u ah, si uu uga badbaado wiilkiisa. waa sida uu isleeyahay ayuu aabbihiis u dilayaa. maalin ayuu reerkii oo dhan u kaxeeyey halkii lamadegaanka ahayd, isagoo xaaskiisa isaga dhigayo inuu dalxiis u wadayo. markii ay yimaadeen goobtii ayuu aabbihiis qorsheeyey inuu duurka kaga soo tago. xaaskiisii ayuu ka dalbay inay gaariga koraan, aabbana uu u soo laaban doono oo ay ayaga meel khaas ah oo uu u wado geeyo. balse xaaskiisa ayaa arrinta aad u dareentay, waxa ayna ku tiri waayahay, balse gaariga keligeed ayaa raacday. wiilka yar waxay kaga tagtay gaariga dhinaciisa kale. markay magaalada u soo dhowaadeen buu wiilkii gaariga ka dhex waayay. isagoo argagaxsan buu xaaskiisa ku yiri, aawo wiilkeenna? waxay ugu jawaabtay, awowgiis ayuu la joogaa. intuu xanaaqay ayuu ku yiri, ma wiilkeenna baad rabtaa inay bahalaha cunaan? waxay ugu jawaabtay, markaad waayeel noqoto ayuu duurka kaaga soo tegayaa sida aabbaha uga soo tagtay oo kale. marka nolosheeda ma rabo inay sidaas kugu dhacdo hadhow. ninkii inuu ooyay ayuu dib ugu soo laabtay waddadii isagoo gaariga si xooli ah u wada. waxa uu u yimid aabbihiis iyo wiilkiisii yaraa oo meel howd ah ku jira, bahalkii yeeyda ahaana ay ku wareegsanayso. aabbihiisna dhagax ku difaacaya wiilkiisa yaraa iyo naftiisaba. intuu xagga aabbihiis u soo orday buu laabta geliyey, waxuuna ka codsaday inuu cafiyo. balse aabbuhu ma ahan qof xasuus leh. markii uu u dhoola cadeeyey wiilkiisa aad buu u farxay, maadaama uusan muddo arkin wiilkiisa oo aad ugu faraxsan. fadlan walaal sheer dheh oo la wadaag asxaabtaada. sidoo kale ha iloobin inaad like saarto muuqaalka, naguna soo biir haddii aadan naga mid ahayn, oo subscribe saar channelka Sheeko Run. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.